ma tahay hooyo amaba gabar jecel gurigeeda in uu nadiif u ahaado iyada oo daal badan daalin sidoo kalena waqti badan ka qasaarin? haddii jawaabtaadu haa tahay, maanta waxaan noo wadaa 10 talo oo ku saabsan nadaafada guriga. soo dhawaada ayaan idin leeyahay, daawo videoga bilaa iyo dhammaad. mahadsanid. بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كسو دوادا كوين هج صام وندي سلامي ميل والبوادون إذا كجوكتين إحلي والبوادين تابحان إذين وذرجينا يا قيري عافيمات دمانتينا. سو دوادا كسو دوادا قلبي فرن أسحاب تيد قاليا inta aan u guda galin videogeeni. haddaan ugu cusub tahay soo dhawow, haddaa wili subscribe noo saarinna fadlan subscribe noo saara, gambaleelkana furta sida video walba cusub oo idinkugu soo dhaco aad u naqatid daawadaha ugu horeeyo. waxaan saaranahay wadadii aan ku gaari lahayn 10,000 subscribe. fadlan videoga sii share gareeya sida dad badan ay noogu soo xirmaan. waa mahadsantihiin. aan guda galno talooyinkeeni. maanta waxaa noo wadaa 10 talo oo howsha guriga noo fududeyn doonto hadduu ilaahay subxaana watacaala raali ka noqdo. haddii aad hooyo tahay iyo haddaa gabar tahay, waa rajeynayaa inaad talooyinkan idin anfici doonaan kana faa-iideysan doontiin hadduu videogan idin soo gaaro insha allah. aan gudagalno. talada ugu horeyso waxaa waaye in aad habeenkii inta aadan seexan ka hor inaad berito wixii aad qaban lahayd amaba aad qoratid amaba maskaxdaada aad ku seefgareysid. talada labaad waxaa waaye inaad habeenkii ciyoob seexatid, subaxdiina ciyoob soo kacdid. haddii habeenkii aad ciyoob seexatid waxay kaa caawinaysaa inaad subaxdiina ciyoob soo kacdid. talada saddexaad waxaa waaye markii aad soo kacdid in aad dharkii aad ku jiiftay iska bedeshid, sida markaaseti jirkaaga uu u fresh u noqdo. talada afaraad waxaa waaye in aad daahiyada iyo daaqadaba intaba aad furtid, sida guriga hawo nadiif ah ay usoo gasho, hawadii kalena ay ka baxdo oo habeenkii dhan qofka uu hurdaayo ama wajiifay. talada shanaadna waxaa waaye asxaabteeda qaaliga ah, aada iyo aadayna taladan muhiim u tahay in aad quraacatid. wax alla waxaad doontid cun, laakiin inaad quraacatid. xitaa haddii aad quraac jecleen inaad mishaari yar cabtid ama conflex cuntid amaba shaah aad cabtid amaba coffee aad cabtid, wax un inaad cabtid sida jirkaaga uu energy kale u helo. qofka biniaadanka markii uu jiifo habeenkii dhan uu jiifo jirkiisa vitamino badan ayuu khasaarinaya. marka sidaas darteed isku day subaxdii markaad soo kacdid inta aad wax qabanin in aad wax cuntid insha allah. talada kale ee lixaad waxaa waaye asxaabteeda qaaligaa, meesha amaba aad wax ka qabanaysid ama hoosha aad qabanaysid in aad waqti u qabatid. inaad aadid matalan qolkan waxaan rabaa inaan kusoo dhameeyo intaas daqiiqod amaba saacad ka dhigbo inaan kusoo dhameeyo, in aadna isku daydid in aad saacadaas gudaheeda kusoo dhameysid. sababtoo ah haddii aad naftaada ka dhaadhicisid inaad waqti badan haysatid, waqtigaaga dhan wuu kaa lumayaa, maanta dhanne wax kuuma qabsan maayo. marka waqtigana asigana aada iyo aad ayuu muhiim u yahay in aad ku xisaabtamtid, in aad meel walba aad hoosha ka qabanaysid ood waqti ku xirtid. talada toddobaadna waxaa waaye asxaabta qaaliga, guriga oo dhan wuxuu leeyahay wadnayaal, laakiin wadnaha ugu muhiimsan ee guriga oo dhan waxaa waaye jikada. jikadaada haddii ay nadiif ku tahay, gurigaaga barkiisa dhan waa nadiif. sidoo kale qolka jiifka wadnihiisa waxaa waaye sariirta. haddii mar aad sariirta iska firaashtid, hoosha barkeeda way ku qabsamatay. talada sideedaad waxaa waaye asxaabta qaaligaa, in aad wax walbo hal aad u qabatid. haddii aad wax dhan hal maraa isla qabana aadhaadid, aada iyo aad ayaa u daaleysaa, waxne kuuma qabsamaayo. talada sagaalaadna waxaa waaye in aad wax walbo boos aad ugu hagaagtid, aad u sameysid. haddii ay dhar tahay iyo hadday alaab tahayba, wax walbo in aad meel u sameysatid. markaas waxa kuu fududaanayo wixii aad rabtay isla markii inaad heshid adiga oo waqti badanna kaa khasaarin. talada 10aad ee ugu dambeysana waxaa waaye asxaabteeda qaaliga, in aad gurigaaga sharaxaadyo badan aad soo dhigin, sida markaaseeti nadaafadana ay kugu fududaato,
gurigaagana uu mar walba nadiif kuugu noqdo. haddii aad sharaxaada gurigaaga si xawli ah ama wax sharaxaad badan aad soo dhigtid, guriga ugu horeyn mar walba uu kaa wasaqooba oo wixii guriga yaala dhan isla markaas bus ayaa koreyso. busna hadday guriga korto guriga dhan maanta dhan marba dhinac ayay u dhiibeysaa. marka talada 10aad ee ugu dambeyso waxaa waaye in aad gurigaaga sharaxaadaha ku yareysid oo sharaxaad yar oo kugu filan oo qurux badan oo adigana aad ka heshay inaad ku sharaxatid, balse sharaxaadyo badan aadan soo dhiganin insha Allah. markaasna waxaa arkaysaa gurigaaga oo nadiif ku ah. gurigana markuu nadiif yahay oo haddana carfaayo, naftaada xataa waxay dareemaysaa deganaan iyo xasilooni. ugu dambeyntiina waxaa laga rabaa in aad Ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celisid markii ay hawshaada ku dhamaato, sidoo kalena naftaada aad u mahad celisid, sidoo kaleetana awaalgud yar aad siisid. wixii aad markaas jeceshahay, koob shaah, koob kafe ha ahaado, inaad soo shubatid, kursigaaga ku fariisatid, kadibna TV ama waxay markaas aad jeceshahay, buug ama kitaab waxa rabtid aqriso. naftaada sida markaaseeti ay u dareemto ayadana nasiino aad iyo aad u badan. asxaabteeda qaaliga waa rajeynayaa inaad ka heli doontiin kana faa'iideysan doontiin. haddii aad idinkana jeceshihiin inaad talooyin kusoo kordhisiin oo bulshada la wadaagtiin, qaybta commentiga kusoo qora sida idinka hawsha guriga aad u fududeysatiin idinkoo daalin waqti badanna idinkaga bixin aad u habaysatiin insha Allah biidnillahi kariim. waa ku mahadsantihiin daawashada videogan, aad iyo aad ayaa u mahadsantahay. haddii aad intaan nala soo gaartay jazaakallah alfi khayr ayaa ku leeyahay. dhammaantiina waa mahadsantihiin inaa idin dhawane marnaba kama daalay kamana caajisay. man laa yashkuri nnaas laa yashkuri illah. alxamdulilah, mar walbana Allah subxaanahu wa tacaala ayay mahadoo dhan u sugnaatay. fadlan videoga like-ta ha ka iloobina asxaabta qaaliga. like-ta aad iyo aad ayay muhiim u tahay, channelka ayay muhiim u tahay. fadlan like saara. inta aan video lamid ah ku kulmeynan waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaana Allah.